أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنبقى أمام مليون وعيل iyo calool xumo iga buuxdo, xanuunna ii raacsan yahay oo asmadu aad maalmahan ii hayso. Waxaan rabaa channelkayga haddaad i daawataan inaad subscribe-kiiyo sababkiiyo sheerka ii saartaan. midda kale anigu horta hore nasiib weeye, ubadku waa nasiib, guurkuna waa nasiib, arsaaqaduna waa calafoo wixii alla kuu qoro horta waa helaysaa. maanta irsaaqad xumo ima hayso, dhibaatana irsaaqada kuma qabo, laakiin awlaadii oo sidii anigu aan u koriyey ii noqon weyday waan arka. doqon haddaad guursatidna farxad intaad farxadid meel kuma nasanaysid oo ma farxaysid. oo doqon haddaad guursatid gurigaa baaba'ay. sababta waxa weeye doqonku weji ma leh, doqon faa'iido ma leh. doqon haddaad guursatid doqon faa'iido ma leh. doqon cumadka aad dhashay oo caruura oo aan caqli ku filan lahayn buu horta doqon kugu diraa. intuu adiga ku ceyrsanayo kuu jeedo horta buu cunugaan yar oo aad dhashay oo saqiirka ah buu horta kugu diraayo cadow kaaga dhiga. kow, doqon marka cunugaaga dhibaata gaarto dhibaatadiisa uu ku raaxaystaa. waa doqonkii kaa dhalay eday. doqon markuu cunugaagu deeq helo ama irsaaqad helo ama uu wax barto ama ilaahay lacag siiyo, doqon waa dawarsadaa oo cunugaasuu dawarsadaa. horta hore gabdhaha Soomaaliyeed inta caqliga leh waxaan sheegaya waa ila garanayaan. nimanka Soomaaliyeed inta caqliga u saaxiibkaana waxaan sheegaya waa ila garanayaan. inta aan caqliga lahayna anigu dee caqli inta suuqta kaaga soo gadi maayo. channelkayga haddaad daawataan subscribe-ka iyo sababka iyo sheerka ii saara. waxaan intaasoo dhan idinku sheegaya waxa weeye anigu horta nasiibka wuxuu iiga galay meel xun oo qof fariid ah. inta badan nolosha uma wada hagaagto, laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayga caqliga i siiyey ee wax badan ii kala reebay baa horta mahadda iska leh. wiilka yar oon dhalay oo dhibaatada maanta ku jira ee maanta balwadda inta ka soo baxay sawbarka horta ehel ma leh. ehelkana aabbaha ugu horreeyo aabba ma leh, oo adeer ma leh, oo eedda ma leh, oo abti ma leh, oo habaryar ma leh. anigii wax u qaban lahaana waa la igu diro cadow baa la iiga dhiga, oo waa ninkaas aanay arki karinba, aniga iyo qabiilkaygiiba aan arki karinin. oo wax lagu akhriyay yaraantiisii weeyaan wuxuu maanta qabiilka ugu hiran yahay. maahana wuxuu bartay, maahana waa wax aabbihii baray. aabbihiisaa qabyaalada baray wiilkaan asagoo yar. wuxuu baray inuu isaaq yahay, inuu habaryoonis yahay, inuu garweyn yahay, inuu mataqaanaa inay hebel 10 awoow baray. aroonna wax kala cararayay ma garanayo, laakiin asagoo yarba waxaan bara. maanta oo uu filterkii ka dhumay oo markuu qofku ku jiro wildarowga ku jirana uusan wax badan xeerinayninoo wax badan uu soo daynayana cuqdadii iyo wixii waagii la geliyey baa weli ku jira wiilka yarkaa. maantana anigu waxba dee kama qaban karo. oo hadduu maanta aniga i yeeli lahaa, oo aniga maanta i ogolaan lahaa, oo aniga maantayto qalbigiisa wixii lagu shubay uusan yeeleen ama uusan, oo aniga maanta uu i rabi lahaa, horta waxa maanta wiilkayga ku dhacay kuma dhaceen. laakiin waa qadarta waa igu dhacday, waana rumaynayaa qadarta, waa ogolaha. wiilkaas yarka ah aabihiis xalay tiktokan soo geliyey conversationkan ku wada hadlaynay. maalin dhaweytana waan la hadloo, daraad baan la hadloo, si wanaagsan buu ila hadla. laakiin waa doqonkuna dadka iyo xoolaha, dadka iyo lacagtay jecel yihiin doqonku, mana calfado. midda kale ilmaha markay hooyo dhasho oo hooyada ilmaha lagu xumeeyo la tuugsadaa baa la dhahaa. anaga faamilgayga qiso ka dhacdo runaan idinka sheekaynaya. aniga horta hooyaday Allah u naxariistay, janna firdawsi Allah geeyo, horta ma hadli jirin. dadka hadlo oo waxa ku dhacay oo ka sheekay horta ma ahaan jirin. hadday cid uga sheekaysan anaga noogama sheekayn jirin. qof hooyaday iiga dhawaan inuu jiro u malayn maayo. Soomaada garanin oo siday aniga close-ka igu haydan ula sheekaysan jireen ma ahan ma arag waliga hooyaday oo iiga sheekaynaysa. saaxiibna anaga lagu xamin jirin inaan nahay.
hooyaday galaadi markaan tagay baa wiil reer xaamuda wuxuu igu yiri waxaan xasuustaa buu yiri anigoo baadiye ka imid aniga oo baadiye ka imid oo aabaha ee suuban sabantar iyo adiga iyo Leylo iyo Aamina Macalin oo banaanka u soo tuuray oo banaanka dhigay maan xasuustaa buu yiri galaadi anoo yar oo tabaadiye intaan ka imid buu yiri magaalada soo galay horta hore waxa weeyaan la tuugsadaaye aabaha iyo caruurtiisu inay Ameerika timaado ama ku banaansa dheer Ameerika timaado horta hooyaday suuba sabantar baa u sababahay Leylo waa u soo dacwootay laakiin sababta waxa iska lahaa hooyada Ilaahay ka sokow oo tirna u soo dacwood aabaha caruurtiisan maanta ay kala dadayacano meelaha jooga u soo dacwood bay tir hooyaday horta waa la tuugsadaadi wataasa ilaahayse waxaan maanta weydiisanayaa oo maalin khamiisaada bal allaha waxaan weydiisanayaa Axmed wuu tuuray Maxamed Saciid inuu tuugsado wuu tuuray Maxamed intuu waxaan maanta udurkan haya ee balwada oga yimid intuu ka baxo oo allaha caadilka oo cirka taagay oo dhulka taagay oo aan gacmaha u taaganayo intuu Maxamed Saciid iyo caafiyo oo xanuunkan iyo waxaan uu ku hadlayo Ilaahay ka saaro oo uu wax barto oo uu shaqaysto oo uu dhexda xirto Axmed inuu Maxamed Saciid tuugo oo kuwa uu maanta ka jecel yahay intay tuuraan inuu Maxamed Saciid tuugan alla u weydiinaya Allahumma aamin idinkana ii soo dhaha wiil kasta iyo gabar kasta oo la tuurana waa la tuugsadaa gabadhayda Yaasmiin markay leedahay aabaheed Sacuudi Carabiya intaan geeyay hal cambuur soo gada wax kale iska daay markaanu maray Soomaaliya dagaalkeedii sokeeye dhacayna ilma Maxamed Xaashi buu lacagaha u soo diri jiray asaga ayadana weligeed kuma uma soo dirinin ayadana maanta waxay u qabtaa aabihii shalay ku xooray janno in lagu tagaayo aaba shalay xooray janno ku tagi maayo anigu kulay gabadhaydana u malayn maayo inay janno ku tagayso laakiin brain wash baa lagu dhiga marka waa la tuuraa baa la tuugsadaa ayada waa la tuuray waana la tuugsada annagana waana la tuuray waana la tuugsada idinkana waxaan ogaan doontaan qof kasta oo ilmihiisa tuurow inaad kuwa tuurtay tuugsan doontid la tuuraa la tuugsadaa bay Soomaali ku mahmaahda waraa loogu mahmaaha anigu waa ku dhibaatooday wiilkaas Ilaahay inuu ii cafiyo Faatixada iigu soo mara oo iigu soo duceeyay ninkaas doqonka ah ee Ilaahay doqonkaas uu nasiibka ii siiyay doqonkaas aniga ii guursaday inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wiilkaas yarka ah ee uu dhalay maanta ku dacdacsanaya de maxaa soo kaxaysay de waa 26 jir de waa 26 jir 26 jir ba 26 jir waa marka la dhaho intay tala ka booda intay geed ka boodaan bay tala ka boodaan ma 60 jir ba hadduu 26 jir yahay ma 26 jir caafimaad qaba mise waa 26 jir xanuunsan 26 jir xanuunsan in la tuurayaa qooyay alayta xaal waa in salaamaya waano maamuliyun ah oo wiilka yarkaayo la igu dayacay shalay asagoo 2 sano jira maanta asagoo 26 sano jira aabiis erayadu xalay TikTok aan ka soo daynayay ku hadlayay iigu soo duceeyay in Ilaahay ii caafimaadiyo oo waliba aabiis uu tuugsadana iigu soo daray ii soo duceeyay anigana Ilaahay inuu kurbada iyo walwalka iga bi'iyo wiilna waa iga xiran yahay wiilna waa iga xanuunsan yahay Ilaahay ii soo bariya in Ilaahay wiilasha ii caafiyo in Ilaahay wiilasha ii caafiyo gabadhayda soo farxanuun kuma ogiye wiilasha iga wiilkaasna jeelka iga soo saaro kana Ilaahay inuu ii caafiyo Faatixada ii soo mara anoo maamuliyeen idin salaamayo idin la salaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh